ورسا سارنتي تهاي ولا رجال يقرب قفطا يكالميا إلهي كالم له عن إلهي إذنكن إلهي إذن كالميني ولكن هاي ولكن غالبا هاي ولكن غالي بنا هاي وتبع عريسن ودب هايو بنا هاي سوق داود استاج muuqaalkan waxaan ka codsanayaa inaad share gareyso oo asxaabta la wadaagto muuqaalkan aad gadaal ka aragtaan waa aabe Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Qardho aabahan waxa ka dhintay Allah u naxariistay xaaskiisa 4 bilood ka hor Jannat Firdawsa fadhigeeda Allah ka yeelay 2 bilood kadib bishii Ramadaan aan soo dhaafnay gudaheedina waxa ka dhintay aabahan oo ka xanuunsatay isbitaalka Qarniga ka dhimatay Allah u naxariistay uradiisi aabahan laba tacsiyood baa la soo gudboonaaday saa u jeedaan waa xaas balaaran aabahan 14 caruur buu dhalay ilaahay ha u barakeeyo magaalada Qardho caan buu ka yahay 24 sano Puntland gaar ahaan Qardho jooga koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda aabahan wuxuu maanta ka rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maanta in laga soo bixiyo lacag deyn oo lagu leeyahay oo gaaraysa $4,000 aabahan waa muruqmaal wuxuu magaalada Qardho ku dhex wareejiyaa macmacaanka gaari gacan buu leeyahay sida mooska liinta cambaha babayga arimahaas qudradahaas buu wareejiyaa deyn baa lagu yeeshay gabarta ka dhimatay Allah u naxariistay lacag uu ku daweynay inta xanuunsanayd iyo lacag kale oo deyna oo qudaarta iyo lagaga yeeshay $4,000 maanta loo haystaa xaaladii aabahan ku wabirsatay wax yar aan wada daawana aabahan oo ummadda Soomaaliyeed ka codsanaya inay deynta ka soo bixiyaan lambarkiisuna hoos ku qoray wax yar muuqaalka aan wada daawan anigoo Ahmed Abdi waxaan u codsanayaa dadweynuhu walaalahaydu waa idin bandhiganayaa dhibkayda idin bandhiganaya maanta waxa ay haayo dhimashada waa xaq waxa ay haayo deemin muslimiin iga leh aan meel aan la tacaalo meel aan la maro meel aan ka maro waysanahay nin la garanayna waa ahay ma arti rahmaadiisa dhibkaas ay hay walaalahaytiin الله يدين بركة الله يدين شفاعة إنك واحد بحسن إلهي الحمد لله رب العالمين إلهي وخير جو إلهي سن واحد بان الله كسيو إنك كلمة الله وكلمه إنك جاب كسوها كبي وهي سوابي وحك بدن الله سيو وهي أسي وهي كسي بدن كون الله يسيو إنك كلمة ولا رجال إن شاء الله ولكن هاي كلمة الله يدين كرجال يدين كسر دين تاس وهي شيء dadkan dhibkooda tacaaladooda baa ay gashay gabadh kaligeed waxa iga baahday tan ugu dambeysay waxa iga baatay jidkii yareed hadda waxa iga baahday 4,000 aniga jaafkayteeda laakiin way dad leban sheegaya 4,200 iga baahday way dad leba waxa 3,720 baa lagu leeyahay 3,720 dadka waxa ugu yeesheen waxaan gadaay qudaara islaan baa gaday hore islaan baa gaday qudaartiisii u gaday ilaa ninka xanuunsan hore islaam ma fiirinaysa waa bogta ii imaaday waxay aabahan wuxuu aaminsan yahay qadarta eebe in qofka uu dhiman karo oo gabadhii ishara Ilaahay siiyay uu ka qaadi karo qadarta waa aaminsan yahay waa kan asagoo u ducaynaya gabadhiisii iyo xaaskiisa Allah u naxariisto asagoo u ducaynayna waa kan oo leh qadarta eebe anigu waa aaminsanahay maaday alxamdulillah Allahu rahmad iyo dhimatay ayana Allah u naxariisto daawadayaal waxaan idin ka codsanayaa si naxariis ku jiro aabahan waa reer Qardhood waa nin magaalada Qardho caanka ah inaan u soo duceyno soo caawino muhiimadda ugu weyn hadda social media u yimi hadda oo noola soo xiiray waa lacag deyn oo lagu leeyahay oo gaaraysa $4,000 lacagtaas waa 6,700 iyo jajab adigu waa lacag 4,000 ku dhow waana xaas balaaran Ilaahay ha u barakeeyo waa caruur badan buu dhalay saaxarakan ka aragtaan kilibiyada ka daawanaysaan 14 caruur waaye ilmaha ugu yar waa gabar 7 bilood bijida qof walba aabahan soo caawiya wuxuu ugu duceynayaa ducadatan الله يدين بركة الله يدين شفاعة إنك واحد بحسن إلهي الحمد لله رب العالمين إلهي وخير جو إلهي سن واحد بان الله كسيو إنك كلمة الله وكلمه إنك جاب كسوها كبي وهي سوابي وحك بدن الله سيو gabagabadii daawadayaal waxaan si naxariis idin ka codsanayaa horta muuqaalka inaad sii share gareysaan oo asxaabtiin la wadaagtaan soo dad badan uu muuqaalkan u gaaro lambarkiisu meesha ayuu ku qoran yahay kii $10 heli kara kii $5 heli kara kii $100 heli kara kii $200 heli kara kii $1 heli kara wantiyadu waa lacag isgaargaaray meel $9 ayay $1 ka dhigaysa hadaa $1 soo dilid aabahana kala baqaynina waxa kala baqaylina u soo duceeya muuqaalka u share gareey soo waca
qoryacad buu degan yahay laba qol oo la isu geeyay alwaax iyo la isu geeyay cooshada ayuu kaga degan yahay xaafadda qoryacad aaga Jubeer waxaan si naxariis leh mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad idin ka codsanaya dadka Soomaalida waa dad iscaawiya khayr jecel qofkii tabaalaysan qofkii dhib haysto qofkii deen loo haysto qofkii laga xanuunsan wax badan baa dad xanuunsan idin soo tabi aabahan isaga iyo caruurtiisu waa caafimaad qabaan ilaahay baa mahad iskale xogaa xanuun yar baa jira oo adigu intii gabadhu ka xanuunsanayd gabadhu marxaas markay ka dhimatay gabadhi kale haddana ay ka xanuunsatay wuxuugaa la murugooday marka hadda wuu caafimaad qabaa duruufta maanta haysta waa xamaaran karaa waa shaqaysan karaa deen baa loo haystaa deentuna waa qofka waa cuslaysaa qofkan awoodin marka ka soo bixiya $4,000 waa lacag yar Soomaaliyeey waa qaaraan mid $10 bacaaw qaaraanka ka qayb qaadano hadii codsigayga aad maqlaysaan ama waaba idinku xukumi karaa bacaaw hadaan dho marka qaarkood $10 aynu soo dirno lambarkiisu hoos ku qoran yahay waxa aabahan la dhahaa macallin Cabdisaaq Cabdi baa la dhahaa qardacaan buu ka yahay aad baa wada garanaysan wajigiisa fadlan muuqaalkan haduu ku soo gaaro si naxariis ku dhaanta waxaan kaaga codsanahay inaad si share galiso oo asxaabtan la wadaagtaan habeen wanaagsan